waaxda socdaalka dalka Gambia ayaa bilowday ugaarsi ay ku baadigoobayso kooxaha mukhalasiinta ee dadka tahriibiya kadib markii ay kordheen tirada dhimashada dadka Gambia ee isku dayaya inay u gudbaan dhinaca Yurub iyagoo maraya badweynta Atlantika. qaar ka mid ah dadka soo laabtay ayaa hadda qabanaya tababaro ay sida runta ugu sheegayaan khatarta ay leedahay in dalka ay uga caraan raadinta nololka wanaagsanta dalkooda. Sunano Tord ayaa warbixintan soo diray caasimadda dalkaasi ee Banjul. waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari. ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Kajikali United ee ka dhisan magaalada Banjul ayaa xus ay sameeyeen ugu duceeyay saaxiibkood Sharifo Sane oo ahaa laacib ka tirsanaa kooxdani. Sane ayaa ku dhintay badda Atlantic bishii October xilli uu isku dayay inuu gaaro Yurub. isaga laba ka mid ah asxaabtiisa iyo 200 oo qof oo kale ayaa xeebta Gambia uga ambabaxay doon kalluumaysi una jihaystay dhinaca xeebaha Spain. nin saaxiib la ah qoyskiisa oo lagu magacaabo Gaira Jof ayaa sheegay in Sane laga dhaxlay doonta isaga oo meyd ah. After 30 minutes of cleaning the water from the boat, kadib 30 daqiiqo oo ay biyaha ka nadiifiyeen doonta ayay dib u soo laabteen waxana ay heleen isaga oo dhulka yaala. waxay hubiyeen in uu neefsanayo iyo in kale laakiin waxay ogaadeen inuusan neefsanayn. markaas kadib ayay ku tukadeen salaada janaasada muslimiinta kadibna badda ayay ku tuureen meydkiisa. waaxda socdaalka Gambia ayaa u sheegtay VOA in sanadkii 2023 ay diiwaan geliyeen tiradii ugu badnayd oo muhaajiriin ah oo ka baxa Gambia una socdaalay Yurub. waaxdu waxay sheegtay in qaar ka mid ah dadkaasi ay ku dhinteen badda Atlantika laakiin dawladda ma aysan shaacin tirada rasmiga ah ee dhimashada. Ibrahim Gassama waxa uu waayay 5 ka mid ah asxaabtiisa bishii October. wuxuu sheegay in dhaqaale yarida ka sii daraysa ee dalkiisa ay sababayso in dhalinyaro badan ay miciin bidaan in ay u jihaystaan Yurub. xaaladda ayaa sii adkaanaysa dalkani, taasi ayaana sabab u ah in dadka ay si aad u baxaan dalkan. waxaana loo sheegaa in aan xoogga saarno waxbarashada kadibna aan heli doonno shaqo wanaagsan si aan u daryeelno qoyskeena. taasi waa run. marka aad qalin jibiso halkan waxaa laga yaabaa in aad shaqo hesho, laakiin su'aasha weyn ee taalla ayaa ah shaqadaasi ma ku filan tahay adiga iyo qoyskaaga. qaar ka mid ah kuwa tahriibay ayaa dib ugu soo laabtay Gambia. qaarkood ayaa ku biiray urur dhalinyaro oo ka soo horjeeda safarada aanan sharciga ku dhisnayn. ururkan ayaa waxaa aasaasay koox dhalinyaro ah oo hadda ka hor isku dayay in ay Yurub u tahriibaan. hadda waxay isku dayayaan in ay la dagaalamaan safarada khatarta ah sida tahriibka iyaga oo tababaro siiya dhalinyarada. Lamin Bojan waxa uu ka mid yahay xubnaha aasaasay ururkan. wuxuu ka sheekeeyay khibradii uu ka kororsaday tahriib uu halis ugu galay in uu naftiisa ku waayo. safarkani ma ahan mid fudud. annaga waqtigii aan bixaynay qofna nooma sheegin waxa jidka nooga horeeya. waxaan u haysanay in waddadu ay tahay saxan qalin ah. markaas ayaan ku hadaafnay oo aan baxnay. sidaas darteed ayaan isdhahnay marka aan soo noqonno sameeya wacyigelin si aan u tusno in kani uusan ahayn dariiq sax ah. dowladda Gambia ayaa sheegtay in xeebaheeda ay geysay ciidamo roondeeya iyo kaamirooyinka 24 saac waxduuba si ay u ugaarsadaan mukhalasiinta iyo kooxaha kale ee ka ganacsada tahriibka si loo yareeyo safarada halista badan ee ay muhaajiriinta uga baxaan dalkaasi dhaca galbeedka Afrika si ay nolol wanaagsan uga helaan dhinacaas iyo Yurub.